بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ceebtii adduunka dhacday maanta waxaan ku horeysiinayaa duqaydii dhammaatay talo dirirka iyo eegin tabshidkii hadduu dhaco ayaa dhuxulihii daadan. ceebtii ugu weyneyd boo soo wajahday oo ka wajahday magaala madaxdii labaad ee Puntland ee soo buran oo ceebtii ugu weyneyd ka dhacday maanta oo yacni fadeexo ceeb waa dhaaftay. waxa lagu xiray Madoobe Axmed Barre oo nin weyna oo deegaanka soo jeeda oo muddo deganaa weligiiba deganaa meesha oo dir ah baa lagu xiray meesha oo hadal uu yiri Facebook ku yiri lagu xiray oo weliba khasab inta halka madaxa xaqori laga qabtay waxa la yiri waa in apologies ka bixisa ruuxaasi cadaalad miyatay waana meeshii hadda saldanada iyo warsangeli iyo xaruntooda iyo dadka aqoonta iyo wax walba joogeen miyaana ogeyn Madoobe Axmed Barre muxuu ku galabsaday maxaa loo xiri waayay dadkii kale la joogay waa qabyaaladin dhala yaa xiray marka ma Madoobe Axmed Barre walaalkiis baa xiray oo dira mise adeerkiis baa xiray mise majeerteen baa xiray mise cid kale xirtay waxa xiray aadan Jibriil Cali Salaad oo booliiska haysta baa xiray weersi cadaalad come on aadan Axmed Barre oo dir ah in lagu xiro magaalada Baran oo qori halka laga qabto oo lagu khasbo inuu brashur oo wiilashii la socday oo la hadlayay oo qolo walba lahaa inay soo daayaan ma mid kale iltire waxa weeye ninkii loo admay oo magaalada ka safeeyay in dadka in khamriga lagu cabo oo labadii reer oo istagaalay oo tolka ah oo xabada isku daawanayseen oo bahaga Salwiye Maxamed ka ninkii kala habeeyay way waa ninkii magaalada khamriga ka saaray waa ninkii dadka nabadgelyada sugay hadduu ka hadlay dadkaas magaalada nabad ma in la xiraa afkartiisa ma sheegan karo miyaa qofku xaq uma leh miyaa inuu sheegto wuxuu rabo war naga taaya war yaa meesh aadan Axmed Barre oo dira oo magaalada Baran ku xiran oo si cadaalad darra lagu xiray xaqiisa hal la sii daayo sida uu intaan arrintaasi badan haddii aanu ila soo hadlin ama birlay ila soo hadal siinama ama aanu isagu ila soo hadlin isagoo xora wixii uu adduunku wagelaysa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.